markii loo eego cilmiga baalmisjiriga, faryarayda waxay astaan u tahay dhinacyada kala duwan ee nolosha qofka. Sirtu waxay ku jirtaa faryarayda iyo farta fargalka. Dhirirka faryarayda ayaa lagu sheegay in lagu ogaan karo shakhsiyadda qofka. Cilmi baarisyadani inta badan waxay noqdaan kuwa xaqiiqo ah, bal adigu midkee ayaa tahay? Fadlan ka hor inta aynaan u gudagelin muuqaalka like saar si aan u soo badino muuqaalada caynkani ah. Haddii aad nagu cusub tahayna nagu soo biir si aad ula socoto muuqaaladeena xiga. Haddaba aynu bilowno. Asal ahaan faryaraydu waxay u qaybsantaa saddexdan nooc. Haddaba adigu midkee ayaa tahay? Aynu ku bilowno midda koowaad. Faryarayda la eg xariiqa farta fargalka. Qofka noocan ah si fudud iskuma bartaan dadka kale, xitaa haddii ay isku dhow yihiin, khaasatan kuwa ay isku cusub yihiin. Sidoo kale qofka noocan ah waa qof aad u dareen badan, inkastoo mararka qaar uu iska dhigo qof aan la heli karin. Waa qof aad u caqli badan oo yaqaana sida fudud ee dadka loo raaligeliyo, waana qof ay dadku jeclaadaan oo ay qadariyaan aragtiyihiisa. 2. Faryarayda ka hooseysa xariiqa farta fargalka. Shakhsiyaadka noocan ah waa kuwa aad u midaysan oo aanan si fudud loo qiyaami karin. Qofka noocan ah waa qof cafis badan oo si fudud u ilaaba dhibaatooyinkii uu soo maray, laakiin waa qof aanan caradiisa xakamayn karin. Waxaa dhacdo qofkani inuu la kulmo dad badan oo danaystayaal ah. Waxaa lagu qeexaa qofkani inuu yahay qof sahlan oo wax walba looga heli karo si fudud. Waa qof ixtiraama fikradaha kuwa kale, xitaa haddii uusan ku raacsanayn. Waa qof aanan ku farxin dhibaatooyinka dadka kale. Waa qof u xaliya dhibaatooyinka soo wajaha sida ugu macquulsan, waana qof aynaan dadku si fudud u ogaan karin dhibaatooyinkiisa. 3. Faryarayda ka dheer xariiqa farta fargalka. Qofka noocan ah waa qof daacad u ah asxaabtiisa, sidoo kale waa qof xasaasi ah. Shakhsiyaadka noocan ah marka ay helaan saaxiib cusub, ha ahaato gabar ama ha ahaado wiil, waa kuwa aad ugu farxa. Waa qof mar walba xasuusta qofka uu jecel yahay, sidoo kalena ku dadaala xiriirka si qoto dheer oo suurtagal ah. Waa qof aad ugu fiican ilaalinta siraha dadka. Waa qof xitaa ka aamusa runta in la ogaado, waana qof ka cabsada niyadjabka uu kala kulmayo dadka kale. Waa qof iska dhiga sida inuusan u baahnayn dadka kale, waana qof ku dhaqaaqa wax waliba oo maskaxdiisa ku soo dhaca. Waana qof keliya diiradda saara wax waliba uu rabo inuu ku guulaysto. Ugu dambayn, laagta inoogu muuji ka helidaada, lana wadaag asxaabtaada. Waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.